Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga ah kusoo dhawaada barnaamijyadeena caafimaadka. Maanta insha Allah hadii ilaahay yiraahdo waxaan ka hadli doonaa biyaha indhaha ku furmo. Run ahaantii dad badan ayaa laga yaabaa markay indhaha aad wareysatid maxaa indhaha kaaga dhacay biyaha indhaha qabtaan macnaha waa cudur aad iyo aad caan u ah markii indhaha la joogo. Tusaale ahaan Soomaaliya hadda markii la joogo waxaa caan ah cudurka malaria. Soomaalida markii kii joogo mataqaana Hargeysa kii ku nool iyo kii Muqdisho ku nool cudurkaani mid aanan aqoonin malaria. laakiin hadda qofka Mareykanka joogo Soomaaliya joogo malaria inuu inta ka maqal markuu joogo ma ahane xagga inaa laga aqoona laga yaabaa. So marka cudurkan laakiin sidaas ma ahan, waa cudurkan cudur aad iyo aad caan u ah oo wadan walba qofka ha joogo cudurkan wuu ku dhacaa. So marka cudurkan maanta wuxuu yahay ka hadlayna inta qayb loo qaybiya ka hadlayna insha Allah labo video kusoo gabagabeynina maadaama video aad iyo aad mowduuc aad iyo aad u weyn inuu yahay oo loogu hadli karo lix video 7 video loogu hadli karo. laakiin insha Allah waa soo khulaaseynina oo soo gabagabeyn oo sida ugu macquulsan ugu hadli doona oo labo video kusoo gabagabeyn doona haduu Ilaahay yiraahdo. Horta afka qalaad waxaa lagu dhahaa glaucoma. isha anatomical ahaan si u samaysan tahay markaan u laaban inta horta cudurkan aan galin kasta yar anatomical ahaan inaan u hadal darabna oo kasta yarisa idinka fahansiyo. horta biyahaas isha aan ka hadlayno waxaa laga soo saaraa qaybta layerska indhaha qaybteeda dhexa laga soo saaro oo loo yaqaano ciliary body. markii la soo saaro laba qaab ay u baxayaan. markii la soo saaro waxay soo marayaan posterior jambarka oo qaybta dhexe waxay imaanayaan qaybta hore ee anterior jambarka imaanayaan. 70% ka mid ah waxay ka baxayaan meel loo yaqaano trabecularka 75%. 25 kale soo hartan waxay ka baxayaan meel loo yaqaano uv sclera. marka biyaha meeshaas laga soo dayo labadaas meel oo labadaas angle ayayna ka baxaan. ugu horeyntii marka cudurkani waa hal calaamad maaha, waa calaamado badan isku tagay kadibna cudurkan saas ku sameysmay. horta cudurkani waa laba xaalad. horta waa qaybta isha ugu muhiimsaneed ee neerfaha iyo dhibaateeyo, sidoo kale hareeraha qofka inuu wax ka arki waayo. labadaas xaalad cudurkan ayuu qaas u yahay. waxaa kaloo jira mid saddexaad oo qofkani pressureka indhihiisa uu kaco. pressureka indhihiisa qof markuu kaco halis wuxuu u yahay biyaha indhaha inuu qof kaga furmaan. marka qaybo badan loo kala qaybiyaa. marka waxaa loo kala qaybiyaa ilaa ku dhawaad 3 qayb loo kala qaybiyaa. mid ku dhaca mid waa primary oo wuxuu soconaa waqti soconaa. primary waxaa loo yaqaanaa waa mid ugu horeysa oo qofkaan cudurkaani mataqaana inuu sanado iska hayo oo 1 sano 2 sano cudurkaan inuu socdo oo chronic uu yahay. so marka primary-dan asaa laba loo sii kala qaadaa. marka primary in openka hadda angle-ka hadda aan ka hadlay labada angle aan soo sheegay hadda inuu angle-ka uu furan yahay ee angle-ka inuu xiran yahay waxaa loo yaqaanaa primary angle close iyo primary open angle loo yaqaanaa. labadaas angle loo sii yaqaanaa. waxaa kaloo jira secondary mid la dhahay 3 nooc loo kala qaadaa. soo sheegnay primary waa ka hadlay. secondary asiga laba loo kala qaadaa, secondary open angle iyo secondary close angle loo yaqaanaa. ugu dambeyntii mid waxaa jira ilmaha ku dhaca oo loo yaqaano congenital glaucoma. hadda congenital glaucoma asigana wuxuu ka kooban yahay primary congenital glaucoma iyo juvenile glaucoma. haddaan ku hormarno midkaan primary open angle mid angle uu furan yahay mostly waxaa la dhahay labada indho ayuu mataqaana dhibaateyn kartaa waana calaamad malaha qofkaan calaamadihiisa uu qarsoon yahay. sidoo kale pressureka indhaha aad iyo aad ayuu u kacsan yahay oo wuxuu ka badan yahay normalka inta loogu talagalay ayuu ka badan yahay. sidoo kale qaybta dambe oo retina oo neerfaha ayuu dhibaateynaa. sidoo kale aragtida geesaha ayuu qofka oo dhibaato ka sheeganaya. waxaa la dhahay dhammaan markii la joogo biyaha indhaha markii laga hadlayo glaucoma markii laga hadlayo waxaa la waa nooca ugu caansan primary open angle-ka waa nooca ugu caansan waa. mostly waxaa lagu arkaa dadka ka weyn 40 sano dadka ka weyn lagu arkaa. labada rag iyo dumar waa lagu arkaa laakiin mostly waxa u badan yahay la dhahay dadka madowga ayuu mostly u badan yahay. dadka black people-ka ayuu aad iyo aad ugu badan yahay. yaa khatar ugu jira marka waxaa khatar ugu jira horta qofkaan dhaxal ahaan inuu haysto oo waalidkiisa qaar ka mid ah inay qabaan cudurkaani. sidoo kale da'da qofka waa soo sheegnay 40 sano qofka ka weyn aan laakiin da'dana khatar ayuu qofka ugu jiraa. sidoo kale mataqaana dadka oo cudurada indhaha sida qaba sida sokorta indhaha qof dadka qabo waxay halis ugu jiraan indhaha mataqaana cudurkaan asigana inuu ku dhaco. waxaa kaloo jiro
calaamadaha qofka dareema marka waxyaabaha koos gareeya in dadka khatarta ugu jiro waan kasoo hadalnay. Calaamadaha qofka dareema horta waa wax oo chronic, waa wax waqti soconaya, oo maalin oo isbuuc iyo bil iyo 3 bil iyo 5 bilood iyo sanad iyo sanado soconaya. Sidoo kale waxaa waye usually labada indho qofka kaga dhaca, hal ilmaha cudurka kan primary labada indho ayuu kaga dhaca. Sidoo kale calaamadihiisa waa calaamadihiisa u qarsoon yihiin saan soo sheegnay. Qofka habeenka aragtidiisa wax ma ka arkayo, habeenka dhibaato ayuu ka sheeganaya. Sidoo kale saas u yahay markaas hal mar waxaa dhacaysa hal mar aragtida qofka inuu waayo. Sidoo kale mostly qofka wuxuu ka cabanaa indhaha madax xanuun qofka ka cabanaa, indha xanuun qofka ka cabanaa, madax dhan inuu xanuuno qofka mararka qaarkood, indhaha inuu xanuuno, ookiyaalo hadduu isticmaalo ookiyaalo maanta dhan inuu bedelo, mataqaanaa pressureka indhihiisa oo qofka kaca. Mostly waa la daaweeyaa primary-gan waxaa loo daaweeyaa ku dhawaad 3 qaab loo daaweeyaa. In daawoon oo dhakhtarka kuu soo qoro, ama mataqaanaa in laser lagu daaweeyo, ama in surgery ahaan saddexdaas lagu daaweeyo. saddexdaas qaab loo daaweeyaa. Marka waxaa kaloo jira qaybta labaad waxaa waye close angle-ka inuu xiran yahay. Haddii angle-ka uu furnaa, hadda angle-ka inuu xiran yahay. Angle-ka markuu xiran yahay waa mataqaanaa xaalad halis ah oo xaaladda hadaawi way ka duwan tahay. Marka waxyaabo waxaa jiro oo khatar ugu jiro marka waxyaabo fududeynaya jiro marka angle-ka inuu xirmo, si mataqaanaa anatomical ahaan inuu jirka isha ahaan u samaysan tahay, iyo mataqaanaa dhammaan jirka qofka wuxuu ka qabo iyo waxyaabo oo fududeyn karo. Haddii aan ka hadalno isha say u samaysan tahay, dadka indhahooda yariiska ay yihiin dadka indhahooda yariiska ay yihiin aad ay halis ugu jiraan mataqaanaa primary open angle close glaucoma oo biyaha indhaha oo xirmo halis ay ugu jiraan. Sidoo kale dadka oo cornea diameter-keeda iyo iris enlargement oo mataqaanaa isku soo dhow. Sidoo kale dhammaan dadka da'da ah oo mataqaanaa over 50 waxay 50 ka weyn oo mataqaanaa aad ay halis ugu yihiin. Dadka female-ka close angle-ka haweenka aad ay ugu badan yihiin la dhahay. Sidoo kale dadka oo South Asian-ka wadamada Asian dadka ku nool, Chinese-ka iyo kuwaas master oo lagu arkaa, oo Asian countries-ka oo mataqaanaa aad Asian countries-ka aad ayaa loogu arkaa. Waxyaabo kale oo fududeyn kara master ka mid ah oo master dadka oo meelaha mugdiga aad u isticmaalo oo cudurkaan way sababi karaan. Dadka stress-ka aad ugu furaya emotionally maanta dhan murug iyo waxyaabo kale ku jira asagana wuu sababi karaa. Sidoo kale dadka isticmaala daawooyinka indhaha lagu weyni oo mataqaanaa daawooyin indho oo master oo waxaa jiro oo mydriasis loo yaqaano pupil dilation, marka kuwaas ku isticmaala. Marka stage badan ay leedahay marka secondary-ga midkaan labaad stage badan ay leedahay. Stage-yadeeda waxaa ka mid ah mid qarsoon oo calaamadeeda free uu yahay, sidoo kale mataqaanaa IUP-giisa normal uu yahay. Waa xaalad oo latent xaaladan way aamusan tahay. Mid kale waxaa kaloo jiro subacute stage loo yaqaan. Subacute stage-kan asiga waa physiological mydriasis. Waxaa dhacayo process-ka oo pupil dilation-ka kasoo sheekeynay, isha dhan inay furnaato. Sidoo marka maxaa dhacayo qofka xanuun oo qofka dareema, wuxuu kaloo dareemaa fight of darkness, aragtida oo mugdi oo qofka ka noqdo, emotional absent, qofka emotional ahaan inuu kala maqan yahay ayuu qofka dareemaa. Sidoo kale wuxuu kaloo dareemaa maxaa la isha inay mid kale waxaa loo yaqaana relative pupillary block loo yaqaana. Sidoo kale dhammaan waa qaabab ka kooban tahay qaybta labaad subacute-ka oo mataqaanaa meesha dhan qofka wuxuu dareemaa IUP-giisa biyihii indhaha kasoo sheekeynin inay ka casan yihiin. Sidoo kale mataqaanaa cornea-da qaybtan hore isha iyo qaybta dhexe inay isku soo dhagaan. Xaaladaas dhan ayuu qofka dareemaa inuu meesha angle-ka biyihi ka baxayn inay xirmaan. Waa xaalad oo subacute ayaa loo yaqaanaa. So marka subacute-ka marka qofka wuxuu dareemaa calaamadaha qofka dareema waxaa kow ka ah aragtida qofka yaraato, waxyaabo halos ayuu dareemaa. Wuxuu kaloo dareemaa pain xanuun qofka dareema. IUP oo kacsan oo gaaraya 45 ilaa 40 ayuu qofka dareemaa oo pressure indhihiisa aad ayuu u kacaa. Marka waxaa kaloo jira mid kale loo yaqaano acute congestive glaucoma ama waxaa loo yaqaana acute angle close glaucoma. Xaaladan waa xaalad aad iyo aad u daran oo severe ah. Sidoo kale wax si degdeg u dhacayo oo emergency in loo daaweyn rabo si degdeg loo xaliyo. So marka xaaladan waxay sida hadaaya camal waa, laakiin sida hore kuma soo noqonayso qofka wuxuu dareemaa xanuun ayuu indhaha aad kaga dareemaa. Wuxuu kaloo dareemaa qofka matag ayuu dareemaa. Wuxuu kaloo labalabuu dareemaa isha inay gaduudto qofka dareema lagu arkaa. Ilaa ka imaanaysa biyaha mataqaanaa iftiinka qofka dhibaayo, waxyaabo hortiisa maraya arkaa.
bareesharka indhihiisa wuxuu gaaraa 70 ama wax ka badan lagu arkaa. So marka waa xaalad aad iyo aad u halis wareega isha waxay noqonaysaa qaab waxay noqonaysaa oo istaag camal u muuqanaysaa oo vertical sidoo kale isha inay furan tahay oo samindaalid ayay noqonaysaa. Iftiinka haddii lagu ifiyo ma soo celina oo maxaa loo yaqaana unresponsive wax la ay sameynaysaa isha. Waa xaalad aad iyo aad halis u ah. So marka calaamadihiisa waxyaabaha oo mataqaana lagu daaweynayo dhakhtarka ayaa mostly kuu sheega oo end stage ah hadda soo sheegnay ayuu kula wadaagi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. So marka waxaa kaloo jiro mid oo chronic laakiin chronic hore camal oo waqti ba soconaya laakiin waa mid oo xaalad degdeg oo xaaladda haddii laga daaweeyo qofka xaalad kale ku soo doono. ugu dambeyntii waxaa kaloo jiro mid oo xaalad emergency oo close haddii qofka laga daaweeyo xaalad waxaa jiro absolute glaucoma absolute glaucoma waa end stage waa xaalad u dambeyso waa mostly waa painful oo xaalad oo aad u xanuun badan waa indhaha qofka dareema oo painless oo noqon kara painful oo noqon kara. Aragtida markii la dhaho qofka wax dhab arkaa oo iftiin haddii lagu ifiyo xataa waxba arkaa oo macnaha waa xaalad u dambeyso maraya qaybta koowaad xaalad u dambeyso ayuu maraya. Sidoo kale optic nerve qaybta dambe ee neerfahana qofka waxa ka dhacay waxa u muuqanaa si oo mataqaana atrophy oo jug inay soo gaartay waxaas ayuu qofka oo mataqaana qaybta dambe kaga muuqanaa. So marka intaas nooc ayaa jirto oo qaybteena koowaad kaliya kaga hadli doono insha Allah. Qaybta dambe oo ku xigto waxaan kaga hadli doonaa secondary waxaa kaloo kaga hadlaynaa mid ilmaha yariiska ku dhashay insha Allah. sababa biyaha indhaha qaybta waxaa ka soo hadla primary-ga waxaa hadda gali doona qaybta secondary-ga iyo qaybta ilmaha ayaa maanta aan kusoo gabagabeyn doona haduu Ilaahay yiraahdo. Secondary-ga waxyaabo kala sababo oo kaliya cudurka toos u sababay cudurro kale oo indhaha ku dhaca ayaa sabab sida dhaawac inuu soo gaaro qaybta ugu muhiimsan ee loo yaqaan cornea qaybta isha qaybteeda hore inuu dhaawac soo gaaro. qaybta kale ku xigta iris inuu dhibaato uu soo gaaro. Iris meel qaarkood waxaa jira vascularization oo xidid loogu talagalay inay xidid ay imaadaan oo loo yaqaano neovascularization of glaucoma. Sidoo kale cudurro kale oo indhaha ku dhaca ayaa sababi karo oo loo yaqaano vagolytic glaucoma, vagotoxic glaucoma, pupillary block glaucoma. dhammaantooda biyaha indhaha ku furmo oo waxyaabo kale sababi kara ayay ku jiraan. Sidoo kale waxaa kaloo jiro tumorska ayaa ka mid ah. waxaa kaloo jiro surgery dadka loo sameeyo operationka oo mataqaana caadka isha loogu qaado qofka markii loo sameeyo mostly mid kale glaucoma kale ku dhasha jirto. Sidoo kale waxaa kaloo jiro tears oo index ku sameeya glaucoma. dhammaantooda waa secondary waxyaabo kale sameeyna oo secondary ku sameeyna. insha Allah hadana waxaan maanta ka hadli doonaa mid ilmaha oo mataqaana ku dhalanayaan oo congenital loo yaqaan. Congenital marka asaa waxa loo sii kala qaaday primary iyo secondary loo sii kala qaaday. Primary waa midka ugu horeeyo oo mataqaana oo cunuga ku dhalanayo. Secondary laakiin ocular waxyaabo kale indhaha sababi karo sida mataqaana in la waayo mataqaana meelo qaarkood oo isha muhiim u ah in la waayo oo qofka uu ku dhasho asigoo aan lahayn inuu ku dhasho. Sidoo kale qaybta dambe isha inuu cudurro uu jiro cudurro qaarkood jirka ka dhaca oo mataqaana cudurkan improvement ku sameeyna. haddaan ka hormarno primary-ga haddaan ka hormarno waa angalka mataqaana primary-ka cunuga markuu ku dhalanayo waxaa waaye pressure-ka indhihiisa oo iska kacsan sanadka ugu horeeya pressure indhaha hadii laga cabiro cunuga iska kacsan oo mataqaana gaarayo mataqaana IOP elevation inuu jiro. So marka mostly waxaa la cunugani waxyaabo ku sababi kara oo markii laga hadlayo mataqaana 70% waxaa familial history oo qofka wax oo waalidkiisa hor u qaban jiray camal. labada indho mostly ka dhibaateena congenital labada ilmaha labada indho ka dhibaateena oo biyaha indhaha. Sidoo kale 65% alla 65% wuxuu ku badan yahay meelka oo ragga ayuu ku badan yahay. waxaa la qofka markuu dhalanayo pressure-ka indhihiisa waa 40%. sidoo kale qofka markuu gaaro 6 bilood ugu horeyso waa 80% waa. sidoo kale 90% boqolkiiba 90 sanadka ugu horeeyo ayuu dhacaa. waxyaabahaas waxaa ka mid ah mataqaana membrane inuu ku sameysmo xuub inuu ku sameysmo mataqaana meesha angalka uu ka baxayo inuu xuub ku sameysmo. sidoo kale mal development inuu ku dhaco meesha uu ka baxayo oo mataqaana trabecularka iyo switch canalka inuu ku sameysmo. calaamada qofka dareemaya waxaa waaye biyo badan isha ka imaanayso. sidoo kale qofka
ilinta mataqaana iftiinka ayaa dhibaayo sidoo kale corneada qaybta isha waxaa ku dhacayo inay xiranto oo mataqaana ay xiranto qofka ka dhacayo sidoo kale examinationska baaritaanada oo qofkaas oo la rabo IUP-giisa pressureka indhihiisa aad ayuu u kacsan yahay corneada waxay u muuqanay qaab oo mataqaana oo waxay u muuqanay enlargement inay weynaanayso edema dhacayso way cadaanaysaa corneada sidoo kale anterior chamberka qaybta kore isha waxaa dhahay deeply gadaal u sameysmaysaa soo marka labadan qayb oo waxay la socdeen qaybteena hore mataqaana primary angle-ka iyo la socdeen secondary-ga iyo congenitalka midka caruurta wixii oo daawo iyo waxaas ku saabsan baaritaanka dhakhtarka indhaha ayaa la wareegaysa insha Allah intaas soo gabagabeynin caafimaad idin rajeyno insha Allah waa qaybteeda xigta inta ku kulmi doona insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.